بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. ولا الله سومالي ميلاد جوجتان بإلهي سبحانه وتعالى دكوا ما يالو عدي دبنبك الله كقاضو عدي دن الله وفي انت بهن الله ديقو انت بكتا الله بكسيو intii dhimatay allah u naxariisto, waalidiinteena allah u naxariisto, annagana allah nooga daba naxariisto. dalka, diinta, dadka iyo dowladnimadaba ilaahay subxaanahu wa tacaala ha inoo badbaadiyo. maanta waxaan ka hadlayaa laba qodob. wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland hadalkii ka soo yeeray kelmadaan ka oranaya. qodobka labaad waxaan ka hadlayaa dhalinyaro banooni ciyaaraysa oo garoonka laga saaray oo sheekadoodii si khariban loo isticmaalay, iyagana kelmad baan ka oranaya. intaanan bilaabin waxaan rabaa inaan guul u rajeeyo ciidamada Soomaaliyeed oo la xarbiyaya cadowgooda khaarijiyiinta ah ee labada dhinacba. dagaalo kharaar ba ka socda, si fiican baana loo shabinayaa biidnillaahi tacaalana. sanadkan sanadkii la soo afjari lahaa ayay noqonaysaa. Soomaaliya waxaan ugu baaqayaa iskaashada, aad isu kaashada, dowladihiina garab istaaga markay timaado al-shabaab iyo al-qaacida iyo daacish iyo mujrimiin khawaarij oo isa soo bahaysato cadow ilaahay ah. markay timaado naxariisna yaan loo gelin, yaana loo kala bixin, kulli hal loo noqdo. nimankaa yaan mid laga reebin. war nimankaa ha igu soo siidaynina oo nin ha soo qabanina, madaxa ka gura, ha ka waasheen. فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. بإلهي سبحانه وتعالى يري هدا أوقع عن قادي دول خلانك حرقتشي كلمة حرقتشي ولا دا استعمالي تري واحد هاي ما غوار دول خلصي وي بابي وحنا هكريمين سيد دقنين وقلنا قطقوة كله إياقونا تاريخ دا أوقعنا مركا إذا ماذا وحاور هجيني يا ميري تشوغان با كونفور إيو بنتو لامبا dagaalada ka socda inay ilaahay subxaanahu wa tacaala libinta naga siiyo, guushana aan ka helno, cadowgana la baabaasho. wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland baa wuxuu yiri haddii ictiraaf aan ku helayno Falastiin in la tarxiilo oo dhulkoodii Yahuudi qaadato, cadaawad intaa la eg waa yeelayna. ciro hadda ka hor baan kulannay, intaan inuu ka fiican yahay buu ii sheegay. wuxuu ii sheegay inuu nin Soomaaliya yahay, Soomaalinimana aaminsan, waana nin diblomaad ah oo in badan ka soo shaqeeyay diplomasiga. waa nin aqoon-yahana oo PhD ah. Dr. Ciro ninka uu wasiirka arrimaha dibadda ka dhigtay inuu waxaa ku hadaaqo waxay runtii noqotay ka daro dibi dhalo. askarigii maxaa lagula yaabay? dee aqoon-yahankiina saa yahay, askarigiina uu taagnaa saylac baan bixinayaa oo gadayaa oo ku gadayaa ictiraaf. war nimankan odayaasha ah oo Somaliland siyaasiyiinta ka ah waxay horta u baahan yihiin ninkii diblomaasiga bartay oo ku takhasusay oo joogi jiray oo ka shaqayn jiray haddiiba uu saan u dhaqmayo. ciro waadan ogeyn gobol Nigeria ka mid ah 34 dowladood inay ictiraafeen. ma og tahay Falastiin 120 dowladood plus inay ictiraafsan tahay oo dowladnimo u ictiraafsan tahay. dhowr xabo Yurubiyaana ku jiraan, 3 Yurubiyaana ay hadda ku jiraan ay galeen. ma og tahay inaan waxba ka soconayn? ma og tahay Security Councilka 6 wadan oo rasmiga ah iyo 10ka wareegtada ah oo aan joogtada ahayn, unanimous decision haddaysan isku raacin, China, Russia, America kulligood haddaysan isku raacin, ictiraaf lagu siiyey oo dowladda ku siisay, horta wax ku heli mayso. waa qodobka koowaad. haddaydina intaa fahmi karinna walaalayaal siyaasadda ka hor leexda, dhalinyarada ha khaldinina, dadka caamada ah ha luminina, dadka halugoynina. meesha meel ka hooseysa ma jirtaa oo ictiraaf laga raadin karo. qof kale oo muslina oo wadankiisii xoog lagaga qaadayo aniga ha laygu soo
دمجري الله يقصته أنت أنا بجارين مجرين خسارة كإيمان كربع أنا أساس جرين سيد ضمير كينو إدين سين كرا إرو سيد ضمير كاو كوس سين كرا إن ضد لقحي أدوك مربي لهاي إن تلا يدين قحي مال كلا يدين كده عاديو أدول كينا لقاته ما سأقتاي كبوينا إلو بربرة وصوص عدو كبوينا إيه إسرائيل نايسن كلا هرين والخسارة هنا عندنا كأيغو كبا سوق قادين عقب الشعب 2 مليون فلسطينيين على صوت عديوه سيدي وربي ترام ووتر فرونت كدكتو دلحيس ميل انتو دستو ريال ستيت كدستو غزة ودadaas laamigaas badda saaran uu ka soo saaro guryo aad u qurux badan oo lacag badan ka sameeyo kaba soo qaad dadkeedina uu soo qixiyo idinkeedinka soo ma ogid inay idinku lifaaqan tahay imaaraadna ay tahay gacan Israa'iil waxa ku xigta dhowr xabo oo xamaasa ku dhex dhuuntay Hargeysa jooga iyo Hargeysa oo la duqeynay war dadka halu goynina qof idin kan xayaana ma jiro markaa adduunka oo dhan Soomaali cid kan xaysa ma jirto muslim oo dhan ba ku nabcaysanaya arabta iyo ajamta inta shahaadata waa ku lacnadaya waxa ku gadatay Mareykan ba ku itiraafay ama Israa'iil so what haday China aysan ku itiraafin waligeed adduunka inta saaranta itiraaf irku ku jira waxyaabaha wax lagu itiraafo horta soo barta oo soo akhrista waa dad kala diina dad kala af ah dad kala dhaqana dad kala midaba dad kala cirqi iyo sinji ah dad noocaasa kala go'ah oo la itiraafa laakiin dad isku af iyo isku diin iyo isku dhaqan iyo isku midab iyo isku wax walba oo sinji iyo wax walba wadaaga baan itiraaf raadinaya intaan kala gooyo waxa kaliya aad ku heli kartaa itiraaf oo kaliya waa Soomaaliya inta iyadu campaign garaysa tagtay UN-ta tiraahdo waxaanu rabnaa in Somaliland aan gooyno oo wadan gaar ka dhigno oo la itiraafo inta kaliya ku heli kartaa haddaadan inta fahmi karin adigii diblomaasiga ah horta waa nasiib daro imaaraad waxay u soo wadaa soo qadara Puntland xaafuun bay rabtaa inay siiso ما dagaalkii marka Falastiin ka jiray iyo Shaam ba waxa loo soo raray Soomaaliya halkaan loo soo wadaa ya ero inta waa igala Soomaali sanayd intaasna waa igala aqli badnayd intaana waa igala aqoon badnayd nasiib daray ku tahay maanta inaad askari ka sii liidato askari inaad ka liidato Ethiopia itiraaf ka raay Ethiopia kun jeer haday ku itiraafto حاجة اعتراف كاو جارية إسرائيل هديك اعترافتي أمريكا حاجة اعتراف كاو جارية where China ولقت اعتراف ما يسويه مريكان اعتراف وهي روسيا the only way or you أنتوا أيكو أقبلي كرتو General Assembly أنت اللي جيو كل جود لقوا أقبلي كرو Security Council كو يوناني مسألة وهو يذكرها عوي وكليه ما شفتوا ميل كرو حلقة اعتراف مركا نميو اعتراف بعدين كعرري وأوجو مودين ميل بماشي كسي هو سيسا أوجشين سياسيين ترير سوماليلاند ولا ريالو dadka ka xishooda dadka uquushooda ku ciyaarinina ceebaynina umada Soomaali sharafteeda ku ciyaarinina stage-ka caalamiga Soomaali baa tiina hanna jaasaynina magaca hanna jaasaynina aad hanoo soo jeedeen dad muslimiina oo Ramadaan la leynayo wasiirtu soo istaaga soo tarxiila aniga guriga ku soo dhamgaray khasaaraha labaad oo imaanayaan idin sheegay Falastiin وأنا ما كان لي يقان وحي يقانان بدقال باجرة هذا كان ستان والله بالله إذنكو يا عيو قحوتيات واحد سوق لسان قروه أردية يقال له وريقة يا ماشي يا لا اعترافي ما يقال اعترافي مثل فلسطين بارو فلسطين مثل فلسطين وهالك على كيامي حوتيين تقول انت اوتريان با انت اسكو حرمان ماشا اذن مريسا نبادي كبع عيسا حقيه مسكحدين لكم مقاد بو كدرقي نين كان هدوس يسوي قاد كدرقي إرو اسمه مقاد بو هاك خلدن sidaan iyo nolol maahe sida isu dhaama kalmada intaasan ka horeeya waliba aad baan u xeerinayaa hadal badan oo aan sheegi kar lahaa baan ka xishoonaya oo ka warwareegaya sida isu dhaamanimayo ceeb weey waxyaabaha qaar kood dadkan Soomaaliyeed musiibo hor leh ha u keeninina hadaa ka cabanayseen 30 sanadood 40 sanadood aqeylinayseen oo lahaydeen waana la xasuuqay oo dibana loo geystay ما يدين كان تضحى سوقي وربعين اللي فلسطين ما يسيني قحده حوق انتيارات لقو صاروا ولبدا مليون وغزة دقن
milyan ilaa laaya idinka dartiin inta kalena xoog diyaaradda lagu saaro miyaa ka shaqaynaysaan maxaa suuq kalaad marka idinku qayb ka noqonaysaan aaway dhibaatadaas qof dhibaato ka cabanayo haddana dad raba inuu dhibaato u geysto waxbaa khaldan badan dib isugu laabta sheekaysta dadkiina intellectualiska aqligii soomaaliyeed hargeysu yaalla isku noqdo waxaanu nama qabatee nimayo sida isu dhaamo kelmadda intaasan ka oranay culimaa leedihiin aqoon-yahan baa leedihiin culimadiina maxay uga aamusantahay qadiyadan ninkaa waxay ahayd maanta gabar yaroo meel ka hadashay masaajidada hargeyse iyo burco iyo ku yaallo oo dhan berbera khudbaa lagaga akhriyey khudbada jimcadahan soo socota ninkaa ha lagu soo wada qaato culimaduna ha ka digeen waxaan aan ka hadlayno waxaas iyo wax ka sii badan oo aad og tihiin weeye waxa aad ka sheekaynaysaan oo weliba haddana ceebta keliya unbaa na raacdee mahmaah baa jiri jirtay waxaasna ma helin warna i raac meeshii bay taagan tahay ceeb unbaa naga raacday hadalkaa ninkaa wasiirka ah waxaan ka faa'iidayna lama arko haddii xataa maraykanka iyo yahuudda ba ictiraafaan iyo ingiriiska iyo inta ku jirta oo kale haddayna ictiraafaan hal dowladoo diidaa baa ku filan marka nimayo sida isku dhaama diblomasiga dib u daraaseeya intaa kelmadda intaas qodobka labaad waxaa la wareejinayaa wiilal yaryar oo banooni ciyaaraya oo timo dheer la soo galay oo timahooda la baxay oo wadaad uu timaha saa u haysto saas uu leeyahay timahaagu waa dheeryihiin saa oo geesaa u haysto baa meel walba laga soo geenay nimanka mulxidiinta oo diinta neceb soomaalida waxaa ku jira dad aad u badan oo diinta neceb nimankaas weliba wadaad khamiis qaba oo cimaamad ay u saaran tahay waxaa laygu yiri waa wadaadkii cabdirasaaq jiir ah cabdirasaaq jiir wax badan oo wanaagsan buu ummadda u qabtay iskuulluu furay garoonka isagaa u dhisay laakiin xigmad xumo ficil yar oo khaldan baa waxaa laga dhigayaa wixiisii oo dhan waa la tuuraya wanaaggiisii oo dhan waa la baabi'inaya dhulka lala jaraya isaga marka waxaan leeyahay marka koowaad walaaw timuhu in lala baxo waa sunno ceeb maaha haddii faashinku soo raaco sunnada hadda mar dhexe waxaa gaaladoo dhan la baxeen iyo madowga iyo ciyaar suuqa garka ma iska xiiraysaan marka khamiisya hadday qaataan ciyaar suuq oo dhammi ma laga guuraya khamiisyada waa maya sunnadii nabiga weeye waa qodobka koowaad qodobka labaad oo nabigu timo dheer buu lahaa garbaha u jooga timo dheer in lala baxo ciyaalkan bidaar baaba haddeer wada geli doontee intaysan soddon gaarine soomaalidii bidaar baabaha ka dhigtee daaya inta yarta ah oo ay haystaan timahooda ha ku baashaaleen faraha ka qaada hana mushkilana ha uga dhiginina timaha kuwa ciyaar suuq oo aan arkayay dhabarka funaanado ciyaar suuqnimo ah afkayga aanan soo marin karin ay ugu qorantahay muqdisho maraya iyo kuwa masaajid hortiis hoostooda fiirinaya hoosta ay xanuunaysa leh soo ma arkiis kuwaa wey kuwa u baahan in shaqo laga qabto ee maaha wiilashan banooniga ciyaaraya oo sharafta iyo quruxdu ka muuqato surweel dhaadheer bay weliba ku dheelayaan I believe surwaalka xataa dheer in lagu khasbay yani waxyaabaha aadaabta ah dadka dhallinyarada ah yaan diinta ma garanaysaa lagu nacsiin dad badan oo diinta ka baxay baa jira oo dhallinyara waxayna eedeeyaan dugsiyada iyo macallinka iyo wadaadka oo aan marar badan xikmad ku shaqayn fiiri nabiga sala allahu caleyh wasalam masaajidkiisii waa buqcadda labaad oo ugu fadli badan caalamka ayaa nin ku kaajiyay caraabiya gudihiisa masaajid gudihiisa ku kaajiyay dad baa ku yaacay qayliyey fazajaruuhu buu yidhi saxaabigu waa la handaday markaasaa nabigu wuxuu yidhi war daaya ha dhammaystay horta bal kaadaysa ha bogto markuu kaadshay haddaba ogow waa masaajidkii dhexdiisii waa buqcaddii labaad oo ugu fadliga badneed caalamka nebigii khayru khalqi illaahi baa dhex fadhiya buu kaadi la soo doontay waa khalad ka dhacay waa gaf ka dhacay bini aadamkuna sidiisaba waa khataa khayru khataa'iina tawaabuun kullu bini aadam khataa bini aadam dhan waa gafaa gafkaas uu galay ninkaa saxaabiga radia allahu canhu nebigu waa tacliimiyey wuxuu yidhi xalki muxuu yahay ha la xalliyo meesha ha la hagaajiyo xikmad baa loo baahanya caqli ha la hagaajiyo meesha biyihii ha lagu shubo khalaas kaadidii sheekadeeda dhammaatay najaasadii tagta haye ninkiina dhibaato looma geysan ninkaasi caradii iyo ciilkii uu dadkaa u qaaday wuxuu yidhi rabbiyow aniga ii naxariiso maxamedna u naxariiso cid kale noola naxariisan hadda ninkaas waa nin saxaabiya waana nin oday oo caaqila
waxay la gaartay inuu yiraahdo cidna ilaahu ha u naxariisan markaasaa nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri laqad xajarta waasi'an waxaad yaraysay oo ciriirisay mid waasi'a mid inna rahmatii wasi'at kull shay raxmadaydu adduunko dhan bay gaartay meel walba shay kastay gaartay uu yiri baad adigu ciriirisay uu yiri oo aniga adiga nagu koobtay markaasuu tacliimiyey xataa wiilashu hadday khaldan yihiin oo timuhu ay khalad yihiin khaladba maaha waaba sunno waana laga gardaran yahay masaasaa loo yimileed garaynaya babliga hooyadoodii iyo aabahoodii ay daawanayaan iyo asxaabtoodii iyo laga saarayaa wiil yaroo banooni ciyaarayay timahaagaa dheer darteed bax ama soo xiiro arrintaas dulmi weeye cadaalad darro weeye dhaqan maaha dacwada dhib bay ku tahay xataa haddii aad rabtid inaad fulisid behind the scene cid kale isticmaal adoo khamiis qabo oo cimaamad wata wiil yara timaha madaxa ha ku dhegin maxaa u taabanaysaa madaxiisa maadaa iskale isagaa madaxiisa leh xurmu kugu leeyahay ixtiraam buu ku adeer waa inaad tiraahdaa waa inaad u qososhaa nebigu sallallahu alayhi wasallam wuu la ciyaari jiray dhalinyarada wuu la sheekaysan jiray intay kuu yimaadeen meeshii aad muxaadaro u jeedin lahayd oo diinta jeclaysiin lahayd oo dhihi lahayd walaalayaal imaada bal waxaad tagtaa jacfariyiintu meesha ay fureen oo aan ku luglugayno markaan anigu nairobi imaadaan ku lugay dad badanna ku lugayaan habeenkii iyo maalintii oo saa loo lugaynay 24 hours habeenkii midnight baa la xiraa 10kaa la xiraa habeenimo ilaa subaxdii aroortiina waa la furaa intaa dad baa lugaynaya xataa naaga qaawan baa lugaynaya aw dulqaadkii dacwadu aawey dulqaadkii dacwada muslim iyo gaalo naaga qaawan oo gaalo aba xataa lugaynaya ma ujeeda aawey dulqaadkii iyo toleransigii dacwadu meeday dacwadu xikmad bay u baahan tahay hal laga daayo waa laga faa'iideystay dacaayadda iyo adab darrada sida ay ugu baashaalayaan meel walba oo tiktok u gelinayaan kuwii islaam nacaybka caanka ku ahaa adigu ha u furin nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri innaha safiya qaacida dhan baa laga dhambalooliyay saddu dhariica wixii ceeb keenaya waa la xiraya waa la sharaya ma jeedaa waa la daboolaya meel kastoo ceebi ka soo dhici karto waa la gufaynaya diinta waa la dhowraya waa la ilaalinaya ninka nabigu sallallahu alayhi wasallam sidoo uu ilaaliyay aqligiisa iyo xigmadiisa iyo qalbigiisa uu ilaaliyay wiilash yarka qulubtooda hal la ilaaliyo timaha dheer in lagu ciyaarana waaba diin maybe inaan u furno meel kuwa timaha dhaadheer kaliya ama kuwa xagga laga soo xiriyo ay ku ciyaaraan maybe Nairobi inaan garoon uga furno aan discrimination lahayn oo timuhu ama ha ku jarnaadeen ama ha ku dheeraadeen ama ha ku gaabnaadeen ama ku xirnaadeen timahaaga iskale timahaaga adiga iskale wiilka yarka timihiisa isaga leh soo doonuuna u xiran kara cid u diideysana ma jirto waxyaabaha aadaabta ah waa tacliimtani wadaadada waa tacliim masaa'ilka ku adkaysan dadku xaraan leeyihiin waxa xataa arkaya hadda koor mid yiri qofkii jeegada xirxirta waa magacaas magac khariban oo aan rabin inaan dhaho wajeda fiiri aadaabta jamhuurul ulama waxay qabtaa masaa'ilka aadaabta ah nahyigoodu inuu litanziih yahay amarkooduna inuu linnadbi yahay macnaheedu waxay tahay nahyigooda diidmada masaa'ilka aadaabta ah xaraam maaha waa karaahiyo hay amarka ku soo aroora masaa'il aadaabana muxuu yahay waajib maaha heer waa linnadbi waa sunno maxaa la yidhaahdaa maa yusaabu faaciluhu imtithaalan walaa yucaaqabu taarikuhu wixii qofkii sameeya isagoo ilaahay ugu dhowaanaya ajar buu ka helaya qofkii aan samayna loo ciqaabi maayo la weydiin maayo karaahiyaduna waa cagsigeeda waxa weeye maa yusaabu taarikuhu imtithaalan walaa yucaaqabu faaciluhu qofkii sameeyana lagu ciqaabi maayo oo dembi maaha oo dembi ka xasilay waa karaahiyo qofkii ka taga oo ilaahay dartii uga tagana ajar buu ka helaya karaahiyo iyo sunno that's it waajib iyo xaaraan ma soo galaan masaa'ilka adabka ah aadaabta ah oo sulukiyaadka qofka ah iyo labiska iyo suu u soconayay waxaa qofku isagaa iskale diintuna dan kama leh waxaa xoogna ma ay saarin dharka ay qabeen saxaabadu waa dharkii gaaladu ay qabtay abu jahl iyo nabigu isku dhar bay qabeen sallallahu alayhi wasallam waxa la kala bedelayna maaha marka waxyaabaha yaryar oo maaragtay lagu adadkaynayo dadka diinta lagaga saarayo madaahibtu aad bay u badan tahay walaalayaal waasic noqda masaa'ilka fiqiga
فضفاضة يا وسعة يا رحمة كجرتي dadka ku ciriirinina bahash yaan la nicin hala soo aado bahash intaas aan orayo billahi tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi